Isbitaalka dhimirka ee Raywan oo ku yaala magaalada Hargeysa ayaa sameeyay olole loogu gargaarayo dadka qaba xanuunka dhimirka, dadkaas oo inta badan ku dayacan wadooyinka, xaafadaha iyo goobaha baadiyaha ah. Dad badan ayay ka soo kaxeeyeen goobihii ay duruufaha iyo waayaha gaarka ah ku qabeen, iyagoo xarunta Raywan oo ku taalla magaalada Hargeysa ugu sameeyay daryeel caafimaad. Ku dhawaad 400 oo qof ayaa haatan ku jira xaruntan, iyada oo loo sameeyo talo bixin, jimicsi iyo daaweyn. Sheekh Mustafa Xaaji Ismaaciil Haaruun oo dhowaan booqday xarunta Raywan ayaa ka hadlaya sida loo daryeelo dadka xaruntaasi ku jira. walaaleel waxaan idin kala hadlayaa markaska Rawaan oo ah meel dhakhtar oo lagu hayo dadka madaxa ka jiran. dadkaas waxaa ku badan dad aad u tiro badan oo suuqa laga soo ururiyay oo dadkooda aanay waxba haysanin. haatana waxay ku tala jireen inay soo ururiyaan dad kale oo guryaha ku xidhan oo iyana fuqara ah waxna haysan waalina u raacday. meesha tan dadka lagu hayo in ka mid ah dadkii ay ka tirsanaayeen baa bariiska ka bixiya, laakiin waxaa badan iyana dad aad u tiro badan oo baahan oo waali iyo faqri iyo dawalaan isugu biirtay. marka waxaan kula talinayaa qof kasta oo muslim oo daawada klibka kani dadkaasi wixii uu tari karayo cunno uu ka bixiya ha noqoto, kafaalo qaadasho qof kafaalo qaata ha noqoto, waxay ku seexdaan oo u keena ha noqoto, daawo uu ka bixiya ha noqoto. dad badan baa u shaqeeyo bilaash ugu shaqeeya intii ay dadaali kareen waa dadaaleen. dhakhaatiir baa iyana caawisa intii ay caawin karayaan, laakiin dee baahidooda cid dabooli kartaa iska yar. marka ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto waxaan ugu baaqayaa dadka madaxa ka jiran ee boqolaalka ah, hadda 300 in ku dhow baa ku jirta, waxaana la rajaynayaa in dad kale suuqa laga soo ururiyo la keeno. marka waxaan ugu baaqayaa dadka muslimiinta meel ay joogaanba dadka xanuunsanaya ee baahan in la kaalmeeyo, zaka lagu kaalmeeyaa, sadaqa lagu kaalmeeyaa, kafaalo qaad lagu kaalmeeyaa, sidii aad u kaalmeyn kartaba in loo kaalmeeyo. 2012 markaasaan Sheekh Aadanna aanu isla qaadanay inaanu dadka suuqa jooga free anuurna markaanu aragnay dadkeegi xaaladda ay ku sugayeen. ninka noogu sii daraana nin ilaahay makaba uu caafimaad uu leeyahay Hargeysa bartankeeda suuqa bartankeeda u badnaa qayladiisi baa dadna meel itaabatay. waan garanayay nin dhalinyarnimadiisii aan garanayo oo reer Hargeysa Cali Cabdulqaadir oo la wada garanayo. ninka loo soo guday isqiraac jiray gig halka iska tuli jiray oo dhici jiray ayaanu isagana qabanay. ninka loo soo guday injir intuu isku xidhay jirkiisa injirkan lacagta lagu duuba oo kala jiray xitaa lugihiisa oo gurguuranayay isagana oo cidna aan lahayn ayaanu isagana qabanay. dabadna sidaasaanu ka bilownay, saasaanu u wadnay. ilaahay ajar iyo xasanaad ka siiyay Sheekh Aadan gudoomiyaha isbitaalka dhimirka ee Raywan, isaguna wiila qaatay sidii baanu ku warnay. alxamdulillaah muddadaan jiifay bariishka weyna Hargeysa inaan sahro loolan jiray oo keeni jirtay quraacda keliya. marmarna cashada ay la soo martay markay soo raacdo ay dhakhtarka weyn ka shaqayn jirtay inantaas inaan qaaliyo si wanaagsan wallaahi wax walba ii keentay ayay ahayd. markii dambena nimanka Raywan haysta ayaan ilaawin dee qalbigayga waxa wanaagsan ay qabtay aan ilaawi karin. ummadda Soomaaliyeed waxaan u sheegayaa nin aad ugu dhibaataysan ayaa Hargeysa oo dee si xun u dhibaatooday oo ilaahay deemkana caafimaad siiyey ayaan ahay. ummadda muslimiinta meel kasta joogaan dee intaas ayaan dhibaato aad u xanuun badan ayaa soo martay. marka wallaahi dhibaatadaas ilaahay baa iga gargaaray oo ilaahay baa caafimaad ii siiyey. wallaahi nimanka Raywan haysta nimanka wanaagsan Raywan haysta ayaa si wanaagsan ay gacan qabtay, si wanaagsan ila dadaalay oo ilaa ay geeyay handicapta oo 3 bilood handicapta kulligu soo celin jiray, kulligu qaadi jiray. Sheekh Saxaaq markaa ayaa kulligu qaadi jiray, kulligu soo qaadi jiray. nin Cabdifaa'il la oo nimanka Raywan ku jira ayaa gaariga soo saari jiray, idina soo deji jiray. wallaahi mar walba xitaa marka la imaanay xitaa wuu imaan jiray ninkaasi. dhibaato aad u badan bay soo martay, ilaahay caafimaad horta wuu siiyey. wallaahi ummadda muslimiinta waxaan nin dhibaato badan soo martay oo dee si xun ugu dhibaatooday.
magaalada Hargeysa ayaa ahay. cabdirashiid haybe oo isna ka mid ah culimada muxsiniinta ah oo xaruntan booqday ayaa wacdi iyo waana u jeediyey dhalinta iyo waayeelka xaruntan loogu adeegayay. wallaahi waa arrin cajiib ah oo aad iyo aad u qiimo badan. sadaqaadku iyo in muxsinnimada iyo in dadka wax la tara wax aad u qaalisan, laakiin waxaan u malaynayaa dadkii ugu mudnaa ee ilaahay subxaanahu wa tacaala maskaxdoodii iyo caqligoodii dhaawacmeen oo la ururiyaa way ka duwan tahay in bini aadam kastoo baahan wax la taro. tanaa ka qaalisan, waayo dadkani waa dadaan gaajadu damqaynin, waa dadaan dhaxantu damqaynin, waa dad dhibban oo runtii aad iyo aad u dhibban oo maanta u baahan hiil iyo gurmad islaamnimo oo guud bay u baahan yihiin. cid kasta oo islaam oo wax tari karta, xataa haddii gaal wax tari karo in la taro weeyaan. waa dad mudan inay cid waliba qof kastoo bini aadmiya oo ilaahay abuuray markuu arko uu qiimayn karayaa, waanu garan karaya halku wax ka tarayo. gaalkaa garan karaya halku wax ka tarayo, sababtu wax u tarayo, muslimna warkiisa badaa. marka Soomaalina dee waaba xigtadii ugu dhaweyd ee qaraabo ah ama qoys uu noqonaya. marka waa dadka ummadaas meesha lagu ururiyay waliba ilaahay subxaanahu wa tacaala baahiyaha gaarkaa u yeelay ee maskaxdoodii ilaahay ka qaaday, iyadoo lagu eegaya inta caqliga iyo xigmadda iyo dhaqaalahaba ilaahay siiyey ayaa lagu eegayaa. marka insha allahu tacaala ilaahay waxaan ka baryaynaa in ummadda muxsiniinta ah ee adduunka ku nool ee Soomaali iyo cid walba leh in cid waliba u soo gurmato, ciddii wax la qaban kartaaba inay wax la qabato. waxaana inaan yaraan iyo weynaan loo eegin. waxa ugu muhiimsan qofka qof qaabila noloshiisa iyo nafaqadiisa. hal qofka qaafila karaamo iyo sharaf buu ilaahay agtiisana ka helayaa. qofka uu qaabilayna duco ka helayaa. ummadda gacanta ku haysan xil buu ka furanayaa. islaamka oo dhan wuxuu ka duwa fardul kifaaya. ummadda islaamka oo dhan xil buu ka dulqaadaya, ilaahay ku eegayo lagu ciqaabi balaha. marka khayr Allah idin siiyo. qof kasta oo muxsina oo muslim ah oo wanaagsan arinta inuu qayb ka qaato. nin walba tabartiisa. ninka 10 qof qaadan kara, ninka 20 qof qaadan kara, ninka 100 qof qaadan kara. qofba qof buu uga dhow yahay khayrka. qof walibana inta uu ilaahay dhigtaa buu ilaahay agtiisa ka helay. Raywan, real psychiatrist, real neurologist oo dhakhtara yaa jooga. assessment-kii sameynaya based on the international standard-kii. dadkina dabeecaddoodii iyo dhaqankoodii iyo diintoodii garanayo aan dee wax khalada ka soo dhex saaran. qofka sheesheeyay dee kuma garanay waxa laga yaabaa aniga kuladaan ilaahay mar la hadlay dhahdo hawlo dhaqtarka geey. marka waxa weeye Raywan wuxuu ku wanaagsan yahay kale xaggii lodging-ka, hurdadii iyo cuntadii iyo meesha la soconayay iyo nasashadii iyo waxyaalihiina wuu leeyahay oo standardka international wali muu gaarin, laakiin dee jecla u gaari doonaa. xaggii clinicalka medication clinical dawooyinka ugu wanaagsan baa yaa loo recommend garanaya. haddii xataa aad doonto oo dawooyinka aan waddanka laga helin kuwa dibadda xataa aad diran karayso, adigu marka lagu kaamay soo heli karaysa kii aad heli karaysay baa markaa lagu qoriyay. dawooyinkuna way dawo kala duwan oo wada garanayaan mid walba haddii badankeeda leeyahay. marka anigu Raywan waa ku arkay ugu sarreeya soo far Somaliland. dadkuna waa dad meesha maamulaya intan ko friendly oo qofka wala soo dhaweynaya. waa lagaaga warramay telefoon baa la soo diraa in mood family ku jira. waxa la oranayaa haddii badankeeda leeyahay maanta saas noqdo fiican iyo caynka iyagii dhakhtarkii ugu ogol yahay in discussion la gasho. waxa doon soo sheegto recommendations ka geesa adigu aad isleedahay way fiican tahay ka qaato taladii. waxa weeyaan bukaanada aan kula kulanno waxa ugu horeeya marka aan sameeyno waxa weeyaan qofkan inaan qiimeeyno qofkan xanuunka uu qabaayo waa nuucee. qofkan ma uu qalmaa in meesha la dhigo iyo mise wuxuu qalmaa in dibadda lagu daweeyo daryeelkiisa oo dibadda uu ka helo. marka bukaanka shayga ugu horeeya ee had iyo jeer inta badan aan ku sameeynaa waxa weeyaan mararka qaarkood waxa dhici karta qofkan isagoo wali xanuun yar oo iska sahlan oo dhinaca jidhka ah in uu markaa la dhiban yahay xanuun maanka ah oo markaa maankiisa saameeyay. gudoomiyaha xarunta Raywan Aadan Cawil ayaa ka hadlaya qaabka dadkan goobtan ku jira loogu adeego, isagoo xog dheeraad ah naga siin doona xaaladda guud ee xarunta. hadda xaruntu ka kooban tahay goobtii cibaadada oo masaajidkiiba ugu yaala, garoonkii jimicsiga ee ay maaragtay jimka ku sameynayeen waa ugu yaalaan, guryahoodii ay seexanayeen oo maqsinaana waa ugu yaalaan, farmasigoodii, shaybaadhkoodii
oo dhammaystiran shaybaar dhammaystiran dhakhaatiirtii baa joogta ka soo qalajabisay allahuma salli calaa maxamed China iyo Ethiopia oo takhasus ku leh cudurradan dhimirka iyo neerfaha sida cisbitaalka magaciisa ka muuqata waa Raywan Mental and Neurology Hospital dadku waxay inta badan noo yaqaanaan cilaaj un bay nagu tiriyaan laakiin cilaajyadu dee ma aha moogtay wax ay dadku aqoon noo leeyihiin waxaanu qabanayno rehabilitationkii baa ugu jira iyo dadka dibadejintii cibaadadii markay dadku helaan goobtii ay ku jimicsanayaan helaan nafaxaad badan ay helaan nadaafadoodii doobigii baa ugu yaala waxyaalaha cuntadoodii oo saddexda waqtiya dawadoodii ay ku qaadanayaan rayiiskii waxay leeyihiin allahumma salli calaa maxamed sidaas oo kale waxay leeyihiin waqtiyo loo galo kutub ama dahaarada ka warramaya ama fiqiga ka warramaya ama ka warramaya allahumma salli calaa maxamed caqiidada quraankii bay ku baranayaan wacdigii kale helayaan khudbadii jimcaha uga socota waxyaalahaas oo dhan markay isbiirsadaan insha Allah bidnillaahi kariim waxay nooga soo baxayaan dad tayo leh oo lagu kalsoonaan karo oo cibaadadoodii sii wadan kara qof kastoo halkan ku jira dhammaanteen inteena caafimaadka qabta waxa uu inooga baahan yahay gargaar walaaltinimo haddii aad jeceshahay inaad qayb ka noqoto caawinta dadkan waxaad la soo xiriidhaa nambarada iyo akoonnada xakan kaaga muuqda alxamdulillaah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillahi sallallahu alayhi wasallam ma sha Allah wuxuun baan halkan mahadnaq uga yeera jeedin lahaa alxamdulillaah dadka muxsiniinta ku soo tabarucay dhismahan cusub ka kooban hoolka weyn ay maaragtay shirarka iyo haddii alla yiraahdo maaragtay lagu qabto xafladaha xarunta iyo kijada iyo meesha wax lagu cunayo iyo fasalladan iyo haddii alla yiraahdo guriga weyn intaaba noogu tabarucay ilaahay khayr siiyo lacag gaaraysa ilaa $450,000 ayaa lagu qiimeeyay marka nin muxsin ah oo ummadda ka mid ah ayaa intaana maaragtay ku darsaday marka dadkani waa dad ay wax waliba ku baxayaan imaka waxa dhacay abaaro sidaynu la soconno waxa dhacay suuqyadii oo gubtay maciishadii iska adkaatay oo dagaalada caalamka ka dhacay iyo waxaasi ay boqolkiiba boqol ay kor u kaceen ashcaartii dawadii cuntadii sidaa daraaddeed waxyaalihii yaraa ee laga qaadi jiray dadka oo ku adkaaday marka waxaanu ka codsanaynaa dadka muxsiniinta ah sida ay u kafaalo qaataan dadkan carabta ama muslimiintuba ay u kafaalo qaataan dadka danyarta ah dadkan xanuunsanayaana way ka mudan yihiin cid walba in la kafaalo qaato marka shirkaduhu inay qaybtooda ka qaataan dadka kale ee shicibka ayna qof waliba wixii calaakaraankiisa oo kaga qayb qaato insha Allah bidnillaahi kariim sidii dadka loo xanaaneyn lahaa sidii wax loo bari lahaa sidii dibadejin loogu sameyn lahaa marka intaasaan insha Allah bidnillaahi kariim aanu maaragtay idinla socodsiinayna khayr baan idin rajaynayaa qofkii kasta ee fikir kaga qayb qaata Allahumma salli calaa Muhammad qofkii kaga qayb qaata fikir qofkii tala kaga qayb qaata iyo qofkii ma garanaysa adduun kaga qayb qaataba insha Allah bidnillaahi kariim waa soo dhaweynayna dhawaan waxa noo iman doona qalabkii caafimaadka sida iskaanadii iyo MRI-gii iyo ma garanaysa waxyaalo fara badan baan rajaynayna insha Allah inay yimaadaan marka meesha aynu ka wada shaqeyno insha Allah bidnillaahi kariim dadkeena danyarta aynu wada shaqeyno